بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه الأمين محمد بن عبد الله. kusoo dhawaada walaalayaal mar kale iyo cashir ku tacalluqaya bishii Ramadaan. cashirkanii hore aan soo qaadanay wuxuu ka hadlayay soomku qiimaha uu iska leeyahay. maanta waxaan qaadanaynaa cashir ku tacalluqaya waajibaadka soomka. soomku yuu ku waajibaa, sidee buu u waajibaa, maxaa laga rabaa qofka uu ku waajibayo. qofka uu ku waajibayo waa qofkee. laakiin Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu dadka ku waajibiyey waajibaadka marka soomka waxaa ka mid ah dhowr qodob baan rabnaa inaan kusoo ururino waajibaadka soomka dhammaantii. waajibaadka soomka waxaa ka mid ah in la helo qof sooma. qofkii soomi lahaa in la helo ayaa waxay ka mid tahay waajibaadka soomka. markii la helo qofkii soomi lahaa ayuu soomku ku waajibayaa. waxaa marka waajibaadka soomka, markuu soomku waajibayo, waajibaadkiisa waxaa ka mid ah in la helo qof sooma. Allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu noogu cadeeyey dadka mu'miniinta markuu u dhawaaqay kadib in soom lagu waajibiyey. yaa soomka marka lagu waajibiyey dadkii mu'miniinta ahaa. marka mu'miniintii soomka uu ku waajibi lahaa waa in la helo. waxaa waajiba marka qodobka koobaad uu yahay saa'im, waa in la helo qofkii soomi lahaa. qofka soomaya waa kee marka? ma qof kasta ayuu soomka ku waajibaa? may, soomka qofka uu ku waajibayo waa qof shuruudo iska leh. shuruudaha waxaa ka mid ah qofka soomka uu ku waajibayo an yakuuna musliman, waa inuu yahay qof muslim ah. falaa yajibu cala alkaafiri, qofka gaalka ah kuma waajibayo. hadduu soomana soomku ka ansixi mahayo, sababtoo ah cibaadadan waxaa loo shardiyaa qofku marka koobaadba waa inuu tawxiidka haysto. gaalka marka waxaa laleeyahay marka hore tawxiidka soo qabso, ka bacdibu soomku ku waajibaya. marka shardiga koobaad ee qofka soomka uu ku waajibayo an yakuuna musliman. shardiga labaad ee uu ku waajibayana waxaa ka mid ah qofka soomka uu ku waajibaya laga rabo in laga helo an yakuuna baaliqan, waa inuu yahay qof qaangaar ah. waa inuu yahay qof qaangaar ah. falaa yajibu cala sabiyi, qofkii yaraa, cunugii yaraa ee naaska nuugayay, iyo kii 2 sano jiray, iyo kii 3 sano jiray, iyo midkaan gaadhin xaddu takliif, xaddii waajibaadku ay fuurayeen, isna waxba kuma waajibayo. waxaa ka mid a shuruudda qofka soomka uu ku waajibayo ee kale qofku an yakuuna caaqilan. qofku waa inuu yahay qof caqli leh oo garaadkiisu uu joogo. hadduu qofka garaadkiisu maqan yahay oo uu yahay qof waalan, soomku ma uu ku waajibayo. waa goorma laakiin waa haddii qofku uusan isagu garaadkiisa kas u tagsiinin. waa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala u waalay. waa qof Allah subxaanahu wa tacaala garaadkaba uusan u samaynin. waa qof Allah subxaanahu wa tacaala markii koobaad ba caqligiisa uu qaab kale u sameeyey. haddii qofku laakiin khamro uu cabo ama waxyaabo daraagiisa uu cabo, uu ku dambaabaya waxaan uu cabayo, soomkiina waa laga rabaa markii uu waxaan maskaxdiisa ka baxaan. marka qofku waa inuu yahay qof caaqil ah oo garaadkiisu uu joogo qofka soomka uu ku waajibayo. waxaa ka mid a shuruudda qofka uu soomka ku waajibayo an yakuuna naqiyan min alxayd waannifaas. qofkani waa in haddii uu dumar yahay uusan ku jirin waqtigii xaydka, waa inuusan ku jirin waqtigii dhiig dhalmeedka, waa inaysan ku jirin waqtigii dhiigga ay qabtay. waxyaabihii soomka u diidi jiray waa inaysan ku jirin. oo bishii hadday bilato ayadii oo gabadhu dhiig ay qabto, dee soomku waqtiga ku waajibi mahayo oo loogama rabo, adda ahaan loogama rabo. hadday la timaadana kaba ansixi mahayo, waaba xaaraam inay la timaadana. qofka marka soomka uu ku waajibayo waa in uusan qabin dhiig iyo xayd iyo waxyaabihii soomka ka hor imanayay. waxyaabaha kale ee shuruudda ka mid a waxa weeyaan an yakuuna qaadiran calaa sawm. qofku waa inuu yahay qof soomka karo oo awooda. qofku hadduu yahay qof aan karinba, waa oday duqoobay oo lafallafoobay oo taymkiisii yacni aada u soo cunay oo soomkaba aan kari karin, ama hooyo aada u weynaatay,
ama waa qof yar laakiin wuu jiran yahay oo jiradii ayuusan awood u lahayn, ama waa qof safar ku jira oo dhibaato badan dareemaya. yacni qofkan waxaa shardi ah inuu yahay qof soomka kara, waa shardi ayana. shuruudda marka laga helo ayuu qofkan soomka ku waajibaya. shuruudda haddaan soo ururino, qofku waa inuu yahay qof muslima, waa inuu yahay qof caqligiisa uu joogo, waa inuu yahay qof qaangaara, waa inuu yahay qof waxyaabihii dhiiggii ee dumarka ku dhacayay banaanka ka uusan qabin, waa inuu soomka awoodo. shantaas shardi qofkii laga helo ayuu soomka ku waajibayaa. markaasa waxaa laleeyahay qofkan waxaa la helay qof saa'im ah oo soomi kara oo soomka uu ku waajibaa la helay baa laleeyahay. waa waajibka koobaad. marka waa saa'imka waa in la helo intaas oo shardi oofsaday. waajibka kale ee soomka, waajibaadka kale ee soomka waxaa kamid ah zabanu sawm. waa in la helo zabankii la soomi lahaa, waqtigii la soomi lahaa waa in la helo. oo qofkan markii aan helo qof shuruuddaa buuxiyey, haddana qofku waa inuu helaa timekii uu soomi lahaa ee soomka waajibi lahaa. mathalan soomku goormuu waajibaa? waqtiga soomku waa goorma? bilaha marka la fiiriyo waa bisha ramadaan. hadduu dhaho bisha dulqacda ayaan soom ahaan u soomaya, ilaahay ka aqbali mahayo. hadduu yidhaahdo bisha shawaal baan u soomayaa soom ahaan, laga aqbali mahayo. hadduu bilihii kala yidhaahdo soom baan ka dhiganaya, waa dembi weyn. soomka marka waqtigiisu waxa weeyaan bil ahaan bisha ramadaanka. haddana soomku waqtiga uu ansaxayo waxa weeyaan waa waqtiga Allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu qabtay oo uu yidhaahday cuntada iska cuna oo iska caba ilaa aad ka aragtaan ama ay ka kala soocmaan dunta madow iyo midda cad oo loola jeedo ooga hore ee subaxa. kabacdi ilaahay wuxuu yidhahday soomka taam yeela ilaa qoraxdu inta ka dhacayso. marka waqtiga soomka in la helo waa shay waajiba. waajibaadka soomka waxaa kamid ah timekiisa in la helo. timekiisuna waqtigiisa waa in la helo. waqtigiisuna goorma u dhexeeya haddaan soo ururino, wuxuu u dhexeeyaa waqtiga inagu aan u naqaano waqtiga suxuurta. kitaabtuna markay qorayaan ay dhahaan alfajr saadiq, fajrka dhabta ah ama dilaacidda saxan ay dhahaan, waqtigaa laga bilaabo ilaa qoraxdu intay ka dhacayso, intaa waa in la helaa. timeka qofku waa inuu haystaayo u soomaa. hadduu yidhaahdo dadku marka qoraxdu dhacday dadku afuran baan anugu soo bilaabaya ee caawan soomaya, dee soomkiisi la aqbali mahayo, because sababto waqtigii soomka lagumaba jiraba. waqtigii soomku ansixi jiray ma aha, waa waqtigii cuntada ilaahay ugu talagalay. marka waajibaadka soomka waxaa kamid a qofku waa inuu haystaa timekii uu soomi lahaa. soomka waa in la waafajiyaa oo ah laga bilaabo min alfajri الصaadiqi ilaa guruubi الshamsi. waa midii xadiiska uu nabigu ku cabiraya calayhi الsalaatu wasalaam, إida aqbala الlaylu min haahuna waadbara الnahaaru min haahuna faqad aftara saa'im, oo kama qaala الmustafa. wuxuu yidhaahdaa habeenku markuu xaggan ka yimaado waa bari, maalintiina ay galbeed aado iftiinkii uu qarsoomo, qofkii soomana wuu afuriyo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam. marka waajibaadka soomka markaan saa'im helo shuruuddaa hore dhammaystirtay, haddana waa in la helo waajibaadki waxaa kamid a waa in la helo waqtigii soomka timekiisi waa in la helo. waajibka kale waajibaadka soomka kamid a waxa weeyaan waa in qofku uu niyo la yimaadaa. marka uu soomayo qofku min alfajri الصaadiqi ilaa guruubi shamsi, suxuurta ilaa qoraxdu inta ka dhacayso markuu soomayo oo afkiisa cuntada uu ka ilaalinayo, waa in uu niyo la yimaadaa. hadduu qofku ayadii oo ramadaan ay tahay uusan niyeysan oo maalintii uu iska joogo, dee soomkaa ilaahay ka aqbali mahayo. waxaa waajib ku ah, waxaa farducayn ku ah, waa cibaado. cibaadaduna niyo la-aan ma ansaxdo. waa ku yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam, inama alacmaalu biالniyaat wainamaa likuli imri'in maa nawaa. wuxuu yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam, camalku wuxuu ku ansaxayaa u niyo. salaad aan niyo lahayn laga aqbali mahayo, soon aan niyo lahaynna laga aqbali mahayo. waa in marka qofku uu niyeystaa habeenkii beri inuu soomayo. dadka qaar ba waxay yidhaahdaan bisha kowdeeda ayaan iska niyeysanayaa, marka kowdeeda aan niyeysto 30kiiba saasaan ku niyeystay. laakiin taasi mid aha mid saxan madhabkeenna. maalin kasta cibaadada uu la imanayo waa cibaado ka madax bannaan cibaadadii shalay uu la imanayay. tusaale ahaan qofka maanta haddii uu soomka ka tago oo soomka maanta uu afuro,
kii shalay baadil buu ahaa la dhihi mahayo. haddii aan dhahno marka 30 maalmood ee la soomayo hal cibaado isku yihiin oo hal mar baa la niyeysanayaa, waxaa ka dhalan lahayd qofku hadduu maalin fasahaadiyo inta kale inay fasahaadaan. sida salaadaba haddii qofku meel hadduu mid wax ka halaabaan siday eber u wada noqonayso kale, ama niyada markuu ka tago siday eber u noqonayso kale. oo tusaale ahaan qofku ma uu dhihi karo 5 salaadood ee la tukado 24 saac salaadii subax baan niyeystay, niyadiis tii subax baa ta duhur ugu filan ma dhihi karo. waa salaad laakiin waa cibaado kala go-an. ma uu dhihi karo tii duhur baa niyeysto maqribkii niyadii duhurka ayaa ugu filan. maalin kasta cibaadadeedu waa cibaado mustaqil ah. salaada duhur hadday kaa tagto ayadaa ilaahay kugula xisaabtamaya, tii subax waa ku aqbalan tahay. kadaalika soomkana haddii maanta aada soomka aadan maanta soomin baa lagu haystaa, kii shalay ee niyada wanaagsan aada ku soontay waa laga aqbalaya. marka min waajibaati soom waxaa ka mid a qofku waa inuu niyada la yimaadaa fii kulli leylatin, habeen kasta waa inuu niyeystaa. wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis marfuuca isagoo mowquufana soo arooray, man lam yubayit isiyaama falaa siyaama lahu. qofkan soomka habeenkii barin oo habeennimo aan niyeysan soom uma jiro ayuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. soomka marka waajibkiisa, waajibaadka soomka waxaa ka mid a marka la helo qof saa'ima oo sooma, marka la helo zamanu sawm, waxaa haddana waajiba in la helo waxa la yidhaahdo niyo. qofku waa inuu niyeystaa oo niyo go-aan u la yimaadaa. waajibaadka soomka waxaa ka mid a qofku markii la helo qof sooma, marka la helo waqtigii la soomi lahaa, marka niyo la helo, haddana waxaa waajibaadkii soomkii ka mid a qofku inuu ka fogaado is ahaanba wax allaale wixii soomkiisa burburin lahaa, ama soomka ha buriyo ama soomka ajirkiisa ha yareeyo. inuu ka fogaado ayaga waajib ah. waxyaabaha uu qofku ka fogaanayo iska ilaalinayo waajibaadka soomka ka mid a qofku iska dhowraya waxaa ka mid a in waxyaabihii cuntadii oo kale qofku hadduu maalinnimo si kas ah oo badheedha oo cunto u cuno soomkiisii uu burburayaa. wuxuu jabiyey oo uu la yimaaday oo uu ku tuntay waajib ilaahay uu saaray. qofku hadduu cunto cabo soomkiisii waa uu burburayaa oo uu kasoo cababiyo. qofku hadduu jimaac la yimaado xaaskiisii uu tago ayadoo maalin tahay oo la sooman yahay si badheer ahna uu tagayo ka soomkiisii waa uu burburayaa. qofku haddii uu la yimaado wax la yidhaahdo istimnaa ama biyaha minada la yidhaahdo uu iska keeno oo ninkii gacanta uu iskaga keeno biyihii, ama gabadhu ayagu gacanteeda ay adeegsato ama farteeda ay adeegsato oo saa biyaha iskaga keento, soomkii waa uu burburayaa. waxyaabaha soomka burburiya waxaa ka mid a qofku inuu gacanta afageliyo oo iska matajiyo. waxaa ka mid a qofku isagoo iska sooman inuu dhiigga xaydka ka yimaado. waxaa ka mid a qofku isagoo iska sooman inuu waasho. waxaa ka mid a qofku inuu ridoobo. waxyaabahaasoo dhan qofku waxaa la rabaa inuu banaanka ka joogo. oo waajibaadka soomka waxaa ka mid a alimsaaku can ilmuftiraat, qofku inuu ka afaysto oo uu ka fogaado wax allaale wixii soomkiisa wax u dhimaya ee jajabinaya. waxaan aan hadda tirinay waa waxyaabaha qofka ku waajibaya inuu ka fogaado, oo markuu sooman yahay soomkiisa waxyaabaha uu ka ilaalinayo way. hal xaboo ka mid a haddii uu la yimaadana soomkiisuba uu burayo. waxyaabaha kale ku waajibaya waxaa ka mid a waxaa jira wax la yidhaahdo kuwan waa mubdilaad baa la yidhahdaa, soomka way buriyaan. waxaa jira waxyaabo soomka aan burin laakiin qofku soomkii uu soomanaa ajir uusan ka helinin oo isna ay waajib ku tahay inuu ka fogaado. maxaa ka mid a ayana waa waxyaabaha dadkoo la isku dirdiro, waa aflagaadadii, waa dadkii oo wax laga sheego, waa qofku carabkiisa inuusan dhowrin. waa miduu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qof sooman badana oo soomkiisa aan ka helaynin gaajo iyo on ma ahaane wax kaleba aan ka helaynin uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. marka waxa waajibka qofka ku waxa weeyaan waa inuu lisaankiisa dhowro oo ka ilaaliyo waxyaabaha soomkiisa abaalkii uu ka heli lahaa burburinaya hoos u dhigaya. waxaa waajib ku ah waxa soomkiisa si guud ahaaneedba u burburinayana in uu ka fogaado. taasaa waajib ku ah. cashirkeennii maanta oo nuga hadlaynay waajibaadka soomka waxaan rabaa inaan intaa kusoo gabagabeeyo. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.